dadka Muqdisho garanwaaga gorada uga jiray muddada dheer ayaa gaarsiiyay maxdooyin iyo gumaad ay iilka u galeen geesiyaal iyo haldoorro badan oo ay magaaladan lahayd madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si toos ah bulshada magaalada Muqdisho ugu sheegay inay il gaar ah isaga hayaan garanwaaga beegsanaya dadka indhaha u ah bulshada waxaan ku ballanay dadka caasimada deganow garawaa iska ilaaliya ninka aadan aqoonin inaad tira adigu yaad ahayd ama aad hadaadan dhayn xataa aad soo sheegto aad tiraado warnimaanan garanaynaa meeshaan jooga oo la weydiyo liiraaho waa sidee adiga maxaad ahayd intaad naga soo booqatay la weydiyo wax ku jaban ma jiraan diris xumayn ma ahan maxaa la yiraa garawaa khawaarijta si ay u naafeeyaan nabadda iyo dawladnimada waxay markasta beegsanayaan qof kasta oo muhiim u ah bulshada laakiin waxa markan muuqata in dawlad iyo shacabka magaalada Muqdisho ay soo wada jeesteen sida uu sheegayo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo marka waxaan rabnaa degmooyinka maadaama caawa halkan ay joogaan maantana ay goobjoog ka ahaayeen kulankii meeshaas ka dhacay inaan si dhaba ugu diyaar garowno nimankaas oo wajigii hore oo ay nooga barteen ama sidii ay rabeen inay noogu dhex noolaadaan inaysan noogu dhex noolaan dagaal aan ku qaadno dagaalkii maanta la iclaamiyana uu noqdo dagaal marnaba aan looga neefin nimankaas oo loogu tago meel kastoo ay joogaan khawaarijtu daris walaal waalid qaraabo iyo asxaabnimo midna ma laha waxaana shacabka magaalada Muqdisho ay ballan qaadeen inay iska qabanayaan garanwaaga bahalka ah ee mid ula baxaya shacabka Soomaaliyeed waa ololo ballaaran oo looga hortagayo sidii looga hortagi lahay nimankan caadeysta dhiigga shacabka iyo dhiigga dadweynaha inay cabaan maanta ayaa u dambeysay daday dilaan markay waayeen xoolay dileen xoolo iyo ari 500 oo neef oo ari ay xasuuqeen waxay la dagaalamayaan nolosha dadweynaha nolosha shacabka Soomaaliyeed qayb walba ku nooshahay shacabku waa diideen dhiigooda dab in laga ganacsado degmaan deegaamada magaalada Muqdisho ka kooban tahay iyo gudoomiyaalka degmooyinka taliyaasha saldhigyada taliyaasha nabad sugidda garabkiina taaganahay habeen iyo maalin shaqeeya aad baa u faraxsanahay shacabku inay baraarugeen oo maanta taagan yihiin inay yiraahdeen khawaarij maya waxaan u sheegayaa nimanka khawaarijta ee cadawga ummadda Soomaaliyeed ee dhiigga shacabka gumaaday ee maanta aan arkaynay xoolihii inay qalqalayaan dadka ka soo tageen in waqtigooda uu intaan ku ogyahay shacabka ay naceen ciidanka xooga dalka iyo geesiyaasha shacabka Soomaaliyeed ayaa khawaarijta casharro lama iloobaana ugu dhigay qaar ka mid ah gobolada dalka waxaana haatan ay la yihiin geed iyo gabaad ay isku qariyaan